warahmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastaad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii sportiga halo maalin kastoo kala socotaan ciyaaraha latest tube iyo waliba muuqaal cusub maanta waxaan gibiyaan ku eegnaa ciyaaraha kubadda cagta la filayso in qaar kamid ah horyaalada Yurub la bilaaway siba Jarmanka la liigaha iyo waxaad moodaa in Talyaaniga waliya kooxda kubadda cagta Dortmund oo hal euro derqo u badisay kooxda kubadda cagta Dalsford halka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay 2-1 dirtay kooxda kubadda cagta Mönchengladbach ciyaaraan Lewandowski aan shabaqa taabanin ayay iyo Serie A hadii aan waxaan moodaa in Coppa d'Italia la ciyaaray kooxda kubadda cagta Juventus ayaa hal ku kala tageen kooxda kubadda cagta Napoli ayaa hal balse finalka la ballasan kooxda kubadda cagta Juventus Barcelona ayaa 4-0 dirtay kooxda kubadda cagta Mallorca Lionel Messi oo soo tabtay shabaqa halka oo soo kale barnaamijka aad ka ogaan doontaa falnaas ka bedeleen kooxda Atletico ayaad mooday in hal la dhaafisay kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 3-1 dirtay kooxda kubadda cagta Eibar فلندات كعصب تاي channel كيماتي مركا ugu horeysa soo booqatid subscribe gareey gambaleelkana ku dhufo sadeesho video kastaan soo dhigno barteena aan ku bilaabno balaanegno Bundesliga Jarmanka aad moodaa in kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund hal gool dirqo u badisay kooxda kubadda cagta Dalsford goolkaas oo kaliya waxa dhal ciyaaryahan Haaland oo dib ugu soo laabtay garoomada soo kamara laba kulan kooxdaasi waxaad moodaa in Haaland uu kulamada uga maqnaa yahay xagga dhaawaca jilibka soo gaareen balse dib ugu soo labadiisa garoonka ayaad moodaa inuu ka saacday in kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund the time ama daqiiqadii ugu dambeeyay hal eber ugu badiyeen kooxdaasi goolka kaliya waxa ciyaaryahan Haaland wuxuuna ahaa goal test aan caadi ahayn aad moodaa inuu yahay nin aan caadi ahayn oo la qaban karin Haaland kooxda kubadda cagta Bayern ayaa 2-1 u badisay kooxda kubadda cagta Mönchengladbach ciyaaryahan Podolski ayaa soo taaban shabaqa balse ka saacday kooxdiisa in ay gool muhiim ah ka gaarto kooxdaasi Podolski ayaa soo muujiyay ciyaaraan caadi ahaan balse nasiib daro shabaqa muusan taaban waxaad moodaa inuu isku dayay inuu mar badan goolka taabsiyo balse marmar waxaad moodaa in kubadda cagta aysan kula jirin marka waxa la dhigi karaa habeenkaasi ama maalintaasi maalintii ciyaaryahan Podolski waa ciyaaryahan ku goolasho badan iminka horyaalka Bundesliga iyo waliba guud ahaan horyaalada qaarada Yurub waxaana ku hogaaminayaan horyaalkaas ilaa iyo 7 dhibcood waxay kale u baahan yihiin dhowr gool haddii aanay cagaaya Talyaaniga moodaa in si rasmi ah loo furo Serie A Talyaaniga balse Coppa del moodaa in kooxda kubadda cagta Juventus ay la ballasan tahay kooxda kubadda cagta AC Milan ciyaartaas ayaa waxay ku dhamaatay ever balse horay ayaa waxa u soo badisay kooxda kubadda cagta Juventus sida ayayna aggregate ahaan ay u soo baxeen finalka waxayna ay iminka la ballansayeen kooxda kubadda cagta AS Napoli Ronaldo ayaa moodaa inuu ka qasaariyay gool kulaad ay heshay kooxda kubadda cagta Juventus daqiiqadii 60aad intaan qadka laga saaray ama kaarka casaanka loo taagan ciyaaryahan ku dhashay Croatia Ribar taasoo moodaa in inta badan jamaahirta Juventus aysan ku farcin qasaaritaanku qasaariyay Ronaldo reegoradiisa waana reegoradii 121aad uu shabaqa ku hubsado tan waxaad moodaa inaysan ahayn habeenkiisa Ronaldo wala xabiib ku ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus isla Talyaaniga ayaan ku jirnaa waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Inter ay leedahay rajo ay ugu soo baxdo finalka iyagoo qaabili doonto kooxda kubadda cagta Juventus balse ma aysan noqonin waxaad moodaa in ciyaaryahan Eriksen oo gool toosa oo ka soo qaaday caga iyo koona oo shabaqa ku hubsaday taas ayaa siisay in kooxda kubadda cagta Inter la wareegto hogaaminta daqiiqadii labaad balse qaybtii labaad ayaa moodaa in ciyaaryahan Martin oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli
gool shabaq kuubstaasay noqday hal sida awgeeda ay Napoli u soo baxday finalka Copa del Rey Spanishka hadiyana aadna waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Atletico hal iyo hal la dhaafeysay kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao ciyaaryahan Diego Costa ayaa ciyaaryahanka goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta Athletic Madrid balse wuxuu taageero u muujiyay haweeneyda ciyaarta kooxda kubadda cagta Atletico haweeneyda lagu magacaabo Virginia taas oo qaliin dhanka maskaxda lagu sameeyay qaliinkaas ayaa la yiri waa lagu guuleystay waxaan laga soo bixiyay xogo bura ku jirta maskaxdeeda taageero ayuu u muujiyay Diego Costa kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa 4-0 jirtay kooxda kubadda cagta Mallorca اللي وشبكة صوت تابتي عياريها ليونيل ميسي سو كله تركها لو جول أو سو كله لها أما سو كها عاوي تابرها كوضا كوبدا عاكتيا إيبار ياد مودا إنا عوغس قيلين سي عياريها ميسي يا كوجري كوضا ذي الحقوليان كدلين كرنا maxaad leedahay taas ayaa keentay inay cago canaqa oo muujiyay tababaraha kooxda kubadda cagta Eibar taasoo moodaa inay u fadhiyaan guddiga la liigaha moodaa inuu sidoo kale uu mutaysan doono ganaac Lionel Messi qaabka uu la dhaqmay tababarahaasi ayaan moodaa inay tahay mid ka baxsan anshaxa kubadda cagta adduunka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 3-1 dirtay kooxda kubadda cagta Eibar taas aad moodo in ciyaaryahan Marcelo ninkii dhalay goolkii saddexaad uu taageero weyn u muujiyay ninka Minneapolis lagu dilo Afrikaanka Florida taas aad moodo in ciyaaryahan dhowra ay muujiyeen taageero sida ciyaaryahan Jadon Sancho iyo waliba kooxaha Liverpool Chelsea iyo kale balse Marcelo ayaa moodo inuu taageero dhaba u muujiyay soo jilibka dhulka dhigtay taas oo la maclatay in ninkooda lagu dilo Minneapolis lagu dilay jilibka isagoo lagu xiray neeftiya I can't breathe uu yiri ninkaas taasoo la xamaatay ma neefsan karo balse waxa uu naada muusan helin sida ayuuna ku dhintay Florida ciyaartaasi waxaad moodaa in ciyaaryahan Hazard uu aad uga soo dhaxbuuqday isagoona ku lug lahaa 3 gool oo la dhaliyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Los Blancos ayaa moodaa inay taageero weyn u muujiyeen laacibkani hore kooxda kubadda cagta Chelsea ay dhaheen waa habeenkiisa waa laacib ay u baahan tahay kooxda kubadda cagta Los Blancos Hazard ayaa moodaa inuu dhaawac la dirsay kadib markuu ku soo biray kooxda kubadda cagta Real Madrid inta badan muusan ka qayb qaadanin ciyaarta ciyaarayso kooxdiisa Los Blancos barnaamijkii sportiga waa naga inta ibaas oo idile isma dhaafno